ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga doorashooyinka heer dawlad goboleed dhammaantoodba waxaan ka codsanaynaa in tallaabo degdeg ah laga qaado doorashada beledweyne ee qoondada haweenka iyadoo marka aan aad uga xumahay dhibaatadaas haddana waxaan rabnaa haddii ilaahay raali ka noqdo guddi ahaan iyadoo ay joogaan gabdhihii ururada bulshada madaxda u ahaa gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo goodwill ambassadorskii guddigii u qareemidda haweenka ay joogaan waxa loo jooga maantana ay tahay arrintan inay tahay arrin khatar ku ah qarannimada sharciga iyo dawladnimada doorashada la rabo in laga hirgeliyo Soomaaliya waxa harsan 16 ku harsan gedo ugu yaraan 5 gabdhood ayaa halka ka soo baxaysa hadii ilaahay raali ka noqdo ayagana khilaaf ayaa hareeyay waxaan rajaynaynaa in tanasulaad badan la sameeyo khilaafaadka la xalliyo gabdhahana la soo saaro